deegaanka karin dabeelweyn oo ka tirsan gobolka Sool waxaa ka dhacay isku soo bax ballaaran oo ay soo qaban qaabiyeen bulshada qaybaheeda kala gadisan ee ku nool deegaankaasi banaanbaxan ama isku soo baxan ay sameeyeen dadka reer karin dabeelweyn ayaa waxa ay ku muujinayeen taageerada ay u hayaan maamulka cusub ee haatan laga yeglelay deegaanka Saxadheer oo ka tirsan gobolka Sool dadweynaha aad u fara badan oo isugu jiray odayaasha dhaqanka waxgarad ururada haweenka kuwa dhalinyarada ayaa iyagu banaanbaxaasi ay ku taageerayaan maamulka cusub ee loo yeglelay Khaatumo ka hadlay waxaana ujeedka banaanbaxan ay ku sheegeen inay hambalyo u dirayaan mas'uuliyiinta kala gadisan ee maamulkaasi Khaatumo haddii ay tahay madaxweynaha maamulkaas ku xigeenkiisa iyo sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka iyo labadiisa ku xigeen iyo xildhibaanada cusub ee maamulkaasi uu yeeshay tan iyo wixii ka dambeeyay markii deegaanka Saxadheer ay ka dhacday doorashada markaasi madaxda kala gadisan ee maamulka Khaatumo oo muddo ku meel gaar ah oo haatan si rasmi ah loo yeglelay maamul 4 sano ee soo socota markaasi hogaamin doona maamulka Khaatumo dadka goobtan isugu soo baxay wuxuu u hambalyeeynaya ku faraxsan yahay Khaatumo dawladda aanu dhisannay dawladda madaxda ka yahay Cali Khaliif Galayd يا دمان دولة عن بسناي حبناه هذا أردن عدي تاجر سن دولة عن بسناي نوع سلام يا كوا ميرها كسوها اللي يا بروين كأما صحافلها ولا شيء صول يا سنة هي عين عاد لا تاجر ميرها خاطرين وحك الشيقان وحانولانا صومالي وحيكون ما هذا ninkii qooriya xarab beena ku mara adna waad ogtahay istawa qooriya xaralaw maantii madaxweyne ku xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka golaha dhaqanka garaadada iyo ugaasiyada dhamaantood waan salaamayaa halka waxaa ku sugan bulshadii rayidka ahayd dhammaan degmada karin dabeelweyn baa ku sugan halakan dhammaan waxaanu baaq u diraynaa dawladda Soomaaliya Xasan Sheikh maamulka Khaatumo wuxuu aqoonsan waayay Xasan Sheikh waxaad ogaataa dadka halka ku sugan dadkii ku doortayna yihiin haddaad aqoonsan weeyeen adiga ku aqoonsan waayaan meel kasta ay joogaan in Khaatumo maanta israacday in laga hor baxay wixii hore in maanta aan cidna loo joojinayn waxaan leeyahay Khaatumo ha israacdo Soomaaliya hamidoodo anagu waxa jabo inta kadib waxaan leeyahay waxaan aad u salaamayaa Professor Cali Khaliif Galayd oo xiniya aanu ku faano rag uu lagu leeyahay 12 baan kooga waxa kale oo salaamaya madaxweynaha ku xigeenka mudane Cabdulcagallule ku soo Khaatumo dhalatay unku kala dhaqaalaha iyo wale didibka loodke ninkii ka naxow nuxus oo naftada waa Khaatumo dad maqasheen aniga macnaynaaye waa dhulbaanta miloobay magacoodi way garteen waa dhulbaanta Maxamed Ismaan Cabdullaah telefishinka caalamiga ee Kalsan magaalada Karin gobolka Sool